radio jidbaale maanta waxaa barnaamijka baa noogu martiya laba mas'uul oo ah xasan faarax baarayaasha mas'uulka ka ah dhisaya airportka Buuhoodle iyo Umar Cabdi Haarun xasan faarax baad ku soo dhawo barnaamijka radio jidbaale xog waran ku dhawahay xasan maadaama aad hawshan gashay inaad dhistaan airportka Buuhoodle waxaa laga soo warbixin guud halka uu marayo airportka Buuhoodle bismillahir rahmaanir rahiim airportka Buuhoodle meel fiican buu marayaa ilaahay mahadi waxa gaarsiiyay ummadda reer Caymeed ee dibad iyo gudaba ku maqan iyo sool iyo sanaad ayaa gaarsiiyay iyagaana iskale hantidoodii bayna ku dhisanayaan geeroodii iyo arigoodii iyo lacagtii ay ku dhigeen Yurub iyo Ameerika iyo adduunka ka shaqeynayeen bay ku dhisanayaan masiirkoodii iyo aayahoodii bay dib u fakareen waxayna ku fakareen inay yeeshaan airport iyo riig cusbitaal iskuulo inta ummaddu leedahay inay yeeshaan bay u fakareen oo ku fakareen inay samaystaan sidaa darteed airportku odayaashii baa dhex fadhiya isimadii iyo cuqaashii baanu hadda kaga nimi markii naloo yeedhay iyagaa dhex fadhiya hogaaminaya 850 mitir buuna samaysan yahay 6 baabuur iyo 58 nin oo shaqaale ah ayaa ku jira waxaana caawiyay saaliyadaha dibadda qurbajoogta dibadda iyo kuwa guduhuba waana caawiyeen annaguna samaynaynaa si dhaqso ah inuu u dhammaado dhererkiisa diyaaraddu ka fadhiisanaysaa waa 1500 oo mitir balciisa diyaaraddu ka soo kala laabanaysaa waa 450 mitir marka hore waanu dhammaynaynaa haddii ilaahay taasina waxay ku xidhan tahay in la helo dhaqaalo iska daba raacin ah wixii hore waanu ku dhammaynay wixii dambe iska daba raacinteeda waxaa looga baahan yahay qurba joogta iyo cid kasta oo danaynaya oo magaca sidaa darteed annaga shaqaalaanu nahay dadkii wax samaysanayana waa nahay oo masiirkooda ka fakeray Buuhoodle iyo aagiisa iyo ummadda magaca guud mid walba taageeraanu ka haysanaa iyagaana noo diray iyagaana samaysanayo hantidooda ku samaysanaya waxaanu u baahannahay qurba joogta dibadda inaanu taageero ka helno caawimo ka helno waxaanu samaynaynaa oo ku talagalay airport caalamiya diyaarad kasta oo adduunka ugu weyn inay soo fadhiiso waxaan u malaynayaa anigu 9 airport oo rafaan sameeyay company Bitrail ayaan u shaqayn jiray 1200 1280 bay ahaayeen laakiin diyaaradda la yiraahdo DC3 baa noo soo fadhiisan jirtay maanta waxaan ugu talagalay diyaaradda adduunka ugu weyn inay timaado 1500 oo mitir diyaaradaha waaweyn ee dagaalka ayaa ka duula waanu fahmaynaa cilmiga airportka aad iyo aad baanu u fahmaynaa waana garanaynaa 9 airport baan gacanteyda ku soo sameeyay cid walba meesha ay ka qaabili karto hadday dhaqaale tahay iyo hadday cilmi tahay iyo hadday difaac tahay waanu u midaysannahay waana ku ballannay idinkana waanu idinku sugaynaa inaad dhaqaalo lagu soo caawisaan si aan hawsha looga kala joogsan airportkan dhisteen ilaa hadda heerkee u idin maraya 850 mitir baa samaysan waxaa noo haray xaar baa noo haray 850 mitir intii kalena maanta waxaa ku jira 850 nin iyo 6 baabuur baan hadda kaga nimi dad badan baa waxay leeyihiin airportkan waxaa ka dambeeya shakhsiyaad siyaasadda doonaya inay jaranjaro ku fuulaan airportkan airport shacabka reer Buuhoodle dhisanayaan horumarkooda ku gaarayaan baa sida airport ku yaala Gaalkacyo iyo Muqdisho iyo Berbera iyo Balad Xaawo mise waa airport la doonayo in waxyaalo kale lagu sameeyo airportkan wuxuu la mid yahay airportada Gaalkacyo Garowe Burco Hargeysa Boorame airportada Soomaaliya la mid yahay waa airport ummad shacabihii samaysanayso oo aayahooda ay ka fakareen macdama aysan lahayn dekad macdama aysan lahayn laami soo mara macdama aysan meel loogu yimaado lahayn waxay fakareen inay airport samaystaan ummaddu ugu timaado
oo aan siyaasad ku jirin. airportkan yaa idinka caawinaya? airportka waxaa laga caawinayaa jaaliyadaha dibadda ayaa laga caawinaya. wixii laga caawiyana waa laga caawiyaan, waxa kalena waa uga baahannahay. maamul lagama caawin, xusbi lagama caawin, shirkadii lagama caawin, hay'adii lagama caawin. intaasoo dhanna waa ka madax bannaayeen, ulamaana tegin. dadka shacabka ah taageero waxay noo fidiyeen maalin baa cuqaasha isimada iyo waxgaradka dhalinyarada hooyooyinku maalin bay nala shaqeeyaan iyagoo hamiyad u haya ama jeclaystay airportkani waxa weeye shacab baale. shacabkuna waa shacab Soomaaliyeed. Soomaaliyana ma kala go'ayso, waa midaysan tahay. ha u fakerina Soomaaliya haykalka guud waa dhisan yahay, kursigii uun baa loo baahan yahay ninku fadhiista. horta marka hore United Nations calankii Soomaaliya ka taagan yahay. ha u fakerina si yar oo daciifa. waxaan leeyahay airportkani airportada Soomaaliya ayuu la mid yahay. hadduu ka bedelan yahay wuxuu kaga bedelan yahay Soomaaliya inay kala goodo ma ogola. nin kasta oo Soomaaliya waa u furan yahay airportkani, waana ku soo dhaweynaynaa. qof qurina male, ururna male, xisbi male, maamul male. wuxuu waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed khaas ahaan gobolka Cayn, Sool iyo Sanaag ayaa iska leh oo shacab ah oo aan dawlad iyo maamul midnaba ahayn. xasana waxaa jirtay bardhawooto nin la yidhaahdo Faysal Cali Waraabe Hargeysa jooga inuu yidhi shacabka reer Buuhoodle airport ma dhisan karaan. maxaa taa kaga jawaabteen? maalinta alaha soo hadal laga duway oo waxaan ku yidhi Faysal Cali Waraabow, Soomaaliya qabiil ahaan tuulo yar baad ku leedahay, tuuladaaduna airport bay leedahay. airportkaaga ku ekow baan ku yidhi haddaad nin weyn tahay. haddana waxaan leeyahay Faysal Cali Waraabe hadalkiisa wax la dhadhansan karo iyo wax la soo qaadan karo ma markuu hadlaba dad badan baa nacaya. airportkaaga iyo airportka iyaguna waa isku mid. kaaga ma faragelinayne kaayaga ka xigsood oo isla yaab oo yiqiiqsood oo nin Soomaaliya haddaad tahay waxaad ogaataa in nin kasta kaa awood roon yahay oo kaa aqoon badan yahay. airport baa tiriya baddaanu ka soo seexanaynaa kiinaal oo Buuhoodle la keenaynaa hadday noo suurowdo. shacabka reer Buuhoodle sidee idinkala qayb qaateen inuu airportkan uu heli karo oo Buuhoodle noqoto magaalo caasimada oo wax walba yeelata? si wanaagsan boqolkiiba boqol ayay noogala qayb qaateen. mar kasta la yaabaa inay wax nagu taraan shaqeeya oo dadaala oo degdeg wax u qabta. in boqolkiiba boqol bay taageero wanaagsan noogu fidiyeen. haddii aan ku soo gabagabeeyo maxaad ku odhan lahayd dhalinyaradan dumarka iyo raggaba shacabka dibadda soo ku dhegeysanaya? waxaan odhan lahaa shacabku ka dibadka xanuunsanaya ha ka dhoofo, ka xashka aadaya ha ka dhoofo. markuu ka soo noqdana ha yimaado. qurba joogtiina dibaddu ha timaado, gurigoodii ha timaado. inta aad muxuu ahaa meel kale diyaarad u raacaysaan muxuu ahaa baabuur airport kale ka dhisan lahaa ka dhoofi lahaydeen. warkiina wanaajista shacabka dibadda jira ee qurba joogta iyo shacabka gudaha ku jira. walaalayaal annaga oo aan shilin lacag ahayn yaa hamad niyaddaa keennay oo ku dhaqaaqno indhuhu ha idiin dilaaceen, caqligu ha idiin fayoobaado, dadnimadiinni ha soo noqoto. magicii waxqabsada oo midooba oo ku dhaqaaqa sidii loo dhammaystiri lahaa oo xaflad ku sameeya oo ku